shaki badan ayaa ku gadaaman qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay kulliyadda Jaalisiyaad oo uu fuliyay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qaraxan marka dhinaca kale loo eego waxaa ka badbaaday taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka oo halkaas tagi lahaa. haddaba sidee wax u dhaceen? xogo sir ah ayaa marka ka dambaysa soo baxaya. wararka sirta ah ee dheeraadka ah ee baaritaanada ay ku samaysay madasha online oo aan ka helayno xerada Jaalisiyaad waxay sheegayaan in maanta halkaasi ay joogeen ciidamo aad u tiro badan oo qaarkood tababar u socday qaarna ay daneynayeen in tababar loo qoro. waxaana halkan maanta uu ahaa qorshaha in uu tago taliyaha ciidanka xoogga dalka, laakiin nasiib wanaag wuu maqnaa xilligii qaraxa ismiidaaminta uu dhacay. waa wax iska caadi ah in qof Al-Shabaab ka tirsan qarax gaari uu ku saaran yahay oo isaga uu gaariga wado ama qarax jirkiisa uu ku soo xiray uu isku qarxiyo meelo ka mid ah caasimadda Muqdisho. laakiin waxyaabaha la yaab kale ee qaraxyada qaar tuhunka badan ka keena waxaa qayb ka ah in qofka Al-Shabaab ka tirsan ee doonaya inuu ismiidaamiyo uu gaari karo mararka qaar bartilmaameedyada ay adag tahay in qof shacab ah oo lugeynaya xitaa ay gaaraan. sida kale haddii aan ku fahansiiyo kulliyadda Jaalisiyaad dabcan waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyo oo aysan fududeen qof ismiidaamiye ah inuu galo, laakiin way dhacday. waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan dad 8 ka badan tiradooda oo dhalinyaro ahaa, kuwaasi oo hami badan u qabay inay dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda difaacaan. sidee ayuu ku soo galay shaqsigii qaraxyada ismiidaaminta ah ay ku xirnaayeen? su'aashaasi laamaha ammaanka weli wax jawaab ah kama bixin. laakiin marka aad fiiriso qaraxa sida uu dhacay iyo sida ay dadkani waxyeelada u soo gaartay, waxaa muuqanaysa inay jiraan dad awood leh, Ilaahay baa awood leh oo soo fasaxay ninkan soona geliyay bartaasi. waxaa socda dadaallo aad u xoogan oo aan ka hor dhacaynin oo baaritaano arrintan ku saabsan ah. waxaana la baarayaa ciddii soo fududaysay ninkan qaraxa ismiidaaminta ah waday. ninkan oo dabcan sawirkiisa halkan aan kugula wadaagi karin isaga oo jirkiisa uu go'ay ayaa ciidamada ammaanka ay sawirro ka soo qaadeen. waxaana weli baaritaan lagu hayaa shaqsiga uu ahaa, inkastoo si rasmi ah aan loo aqoonsan. waxaase xaqiiqo ah inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ciidamada soo dhex istaagay xilli ay safaf ku jireen. haddaba weli waxaa muuqata inay dowladda Soomaaliya ku dhex jiraan dad madax ah oo u adeegaya Al-Shabaab, isla markaana mar walba danaha Al-Shabaab u fulin kara, iyadoo qataraha noocan oo kale ah ay si laba jibaarmi karaan. maxay noqon lahayd haddii halkan uu ku sugnaan lahaa taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka? xaalka ma sidan ayuu ahaan lahaa? dowladda Soomaaliya ma sidan ayay u aamusnaan lahayd? waa maya. laakiin waxay tani diraysaa fariin ku saabsan in weli qatar weyn oo Al-Shabaab la xiriirta ay ka taagan tahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Muqdisho waxay ka soo kabanaysay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee kooxda baabuurta waaweyn iyo kuwa yaryarba ay ku geysan jirtay. dhowr bilood oo aynu ka soo gudubnayna qarax ismiidaamin ah oo nooca gawaarida ah kama dhicin. ciidamada ammaanka har iyo habeen waxay u taagan yihiin sugidda ammaanka caasimadda. shacabkana hadda ayay garowsadeen in ciidamadan ay yihiin kuwii badbaadin lahaa noloshooda. Ilaahay ka sukow inay la shaqeeyaan ay waajib ku tahay. laakiin dunida oo idilba way adag tahay in qof isaga doonaya inuu isdilo dad kalena uu galaafto la fahmo durbadiiba ama ka hortag lagu sameeyo. inkastoo mararka qaar ciidamada loo soo tababaro inay toogasho ku sameeyaan dadka qaraxyada wata marka ay ka shakiyaan ama xaggooda ay su'aadaan. Al-Shabaab hadda waxay bilaabeen xogaha rasmiga ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo mas'uuliyiinta inay raadiyaan, kadibna ay soo diraan qof ismiidaamiye ah oo halkaasi ku qaarijiya dadkaasi isagana qaarijiya. laakiin marka la fiiriyo qaar ka mid ah dadka dowladda federaalka Soomaaliya u shaqeeya sida ay uga hadlayaan qaraxan, wax basiida ayay ka soo qaadayaan. sawirrada aad arkayso waa dhalinyaradii waxyeeladu ay soo gaartay. in kulliyadda Jaalisiyaad qof Al-Shabaab ka tirsan isku dhex qarxiyo ayay dadku aad iyo aad waxay uga muujinayaan shaki. laamaha ammaanka ayayna weydiisanayaan in ay soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan kuwii qaraxyan fududeeyay. horey tiirka ayaa loo geeyay dad Al-Shabaab la shaqeynayay oo qaraxyo fududeeyay. kanina baaritaan ma lagu samayn doonaa oo dhigta ma la soo qaban doonaa kuwii ka dambeeyay falkan oo dhalinyaro mustaqbal leh seejiyay mustaqbalkooda, inkastoo geeridu ay qadar tahay noloshooduna halkaasi ay ku ekeen. waxaa jira dhalinyaro badan oo iyaguna dhaawacyo qaba oo la dhigay cisbitaalada magaalada Muqdisho, kuwaasi
oo qaarkood dhaawacyadooda ay culus yihiin qaarna ay fudud yihiin. booqashadii uu ku tagi lahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka xeradaasi ayaa la baajiyay iyadoo haatan hay-adda nabad sugidda ciidamo dheeraad ah ay geysay aaggaasi waxaana la baarayaa sidii ay wax u dhaceen ninka halka uu ka soo galay goorta uu soo galay ciddii shaqada ku qorneyd iyo taliyayaashii mas-uulka ka ahaa aagga laga waardiyo kuliyadda jaalasiyaad. wixii ku soo kordha madasha online ayaad ka daawan doontaa. muuqaalkan inaad la sii wadaagto asxaabtaada kale ayaan rajeynayaa. qaybta kommentiga xor ayaad u tahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto. madasha online mar kasta kala soco warar xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba ah.